horta aniga maalinka aanu guuray ee aan guursada waxaan siiyey tiktokayga way ku jirtay tiktokayga waxaa jira dad badan oo caan ah oo iyada isku dhacsanaayeen oo tiktokayga aniga asdahan aan leeyahay iyadu blog saartay waxba naga dhaxaynin ilma adeeradii baa ku jira ay blog saartay dad badan oo caan oo blog ay saartay baa ku jirtay tiktokayga anu gacantan ka saaray xaaskayga ahayd ma rabin inay iga shakido teleefonkayga noqotay tiktokayga noqotay facebookayga noqotay whatsappkayga noqotay kulli snapkayga noqotay locationkaygaan siin jiray haddii guriga aan ka baxo maanta aan tago baanhofka ama aan suuqa soo wareegayo dadmin oo kale meeshaan taaganay si oo aragto waxaan siin jiray snapchatkayga doodii hadalku markuu batay gabadhan waxay ku dhaqaaqday tiktokaygii inay soo dhigto videogan oo uu hadda ka hor u soo diray qofka aan idiin sheegayo ina adeerkeed laxmiyo ida la dhashay codkeedii baan idin keenayaa haddaad u baahataan anigu kolley hadda ma doonayo gabadha inaan disis daba socdo dad kale aan wax ka sheego ana xaaskayga ahayd waxa weeyaan qof ii dhaxa bay ahayd si sharaf laan ku doontay horteed baan reer iyo xaas lahaa carruur baan lahaa nin waxaan ahaa mataqaanaaye horteed soo dhaqmay dadkaasaan jariimo iyo dhibaato u geysan lahaa iyada waay sababtaan u geysanay maxay tahay shalay waad arkaysan si sharaf laan ku guursaday waan ixtiraamay wax kasta anigu aan awoodi karay waan u qabtay waay xaaskayga ahayd waan ku faanay waay qofka noocaasoo kale ah aad u dhibaataynaysa haddaba su-aalaa la isweydiiyey horteed baan anigu carruuro soo dhalay reero soo lahaa inoo sheergaree lifeka walaalayaan horteed baan reero soo lahaa oon soomaali qabiilka kastoo ay tahay oo mataqaanaa gayaankayga ah aan ka guursan jiray qabiilkan iyadoo ay ka dhalatay maanta waa gayaankayga maantadaa maanta ah qof kasta oo ilaah baan ku dhaartay been ii sheegma walaalayaal ehelkeeda ah sharaf iyo karaamo iyo ixtiraam baa intii gabadhaas aan qabay inaga dhaxaysay maantay noqotay accountkayga way ka saartay samsung waxay haysataa iphone 14 pro max okay waan hayaa koorka ama serial numberka iphoneka ay leedahay iyada ayaa gacanteeda kusoo dhigtay videoguna wuxuu ahaa 2023 bishii labaad qof kasta oo doontan deganna uu garanayaa ciddii wakhtigaas qabtay ee xidhiirka la dhexeeyey walaalayaal aad baad mahadsantihiin ma doonayo intaa ka badan inaan anigu wax ka sii hadlo videoguna waa documentary haddii beri ka maalin dhibaatooyin kale ay ka yimaadaan ama hadalkaygaas maanta aan kula hadlayo been uu noqdo anaaba idin imanaya oo isdilaya ana nafta isdhaafinaya waxaa kaloo jira codka qofka bini'aadanka ah maanta aniga asad codkaygan aad maqlaysaan haddii aan u baahdano codkaaga inaan sameeyo waan samayn karaya is normal waa 2024 qoraallo been ah codad been ah wax kasta ayaan social media keeni karaya imise qof baa laga soo sameeyey photoshop imise qof baa cod laga soo duuba sawirkooda lasoo kor saaray imise qof baa qoraallo laga soo qoray walaalayaal yaan la isku gafin waddankan jarmalka iyo aan joogno maanta qofka bini'aadanka maanta u soo gala dalkan haddaad hooyo tahay carruur dhalaysa waxaagoo dhan combyuter buu kugu jira anu ma doonayo arrimo kale oo ka baxsan tan inaan ka hadlo ma doonayo way jirta khiyaanooyin fara badan way iska jireen laakiin ma doonayo inaan kasii hadlo keliya videogaas meesha uu ka yimid iyo cidda soo gelaysa social mediaha unbaan rabaa inaan arrintiisa aan halkaas kusoo gabagabeeyo anigu ma ihi reer life social media waxaan ku jiraa tan iyo 21 waxaan ahay nin 24 milyan haysta laakiin life ma soo galo ma sheekeeyo cid lama hadlo danteedaan ka raacdaa danteydaa ka weyn walaalayaal arrinteydaa ka weyn noloshaydaa ka weyn noloshaydaa ka ballaaran I don't care so I'm innocent xaqiiqdan waa taas waxaa kale oo meesha aan maqlayay oo jiray oo laiga sheekaynayay in la jabsaday Facebook Snapchat iyo Instagram habeenkan Samsung ay soo dhigtay videoga
videogeeda ay soo dhigtay tiktok aan leeyahay qofkii ogaa ama ciddii soomaaliya maanta arrinkaas videoga aragtay samsam accountkeeda tiktok waxay ka saartay hawada snapkeeda waxay ka saartay hawada kaliya waxay ku reebtay instagram iyo facebook oo ay videogina ku share garaysay aniga laguma dulmeydhan karayo laguma dulmeydhanayo walaalayaal qofkii lagu dulmeydhanayo ama qofkii dhibaatada iyo jariimada kuu geystay waa inaad u tagtaa od walaal qofkii arrinta lagala xisaabtamo documentigoo dhammaystiran anigu waan hayaa bad aniga today asad ahaan maanta ay ugu dambaysa arrinkan life dambe kama soo geli doono kama sheekayn doono meel aan kusoo hadal qaadi doonaya ma jirto gabadhaas walaasheena waxaan u rajaynayaa mustaqbal wacan waqtibaas na soo dhex maray gabadhsi sharaf iyo karaamale aan ku guursaday bay ahayd laakiin waxaan idiin sheegay oo idinku celinayaa videogan maanta la soo geliyey social mediaha tiktokiga la soo geliyey waxa laga soo geliyey iphone 14 pro max serial numberkiisana aan idin hayo waxaana haysata telefonkaas samsung okay filimku isku dhan yahay walaalayaal aad baad mahadsantihiin anigu life waa kasii baxaya habeenku waa idiin wacnaado videogana waa documentary